darawal mooto bajaaja ayaa lagu dilay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir habeennimadii xalay ahayd. Waxaa la tilmaamay in laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya halkaasi ay isku rasaasayeen, iyadoo mid ka mid ah rasaastii ay isweydaarsanayeen oo ku dhintay wiilkaasi dhalinyarada ah ee ku xamaalanayay mooto bajaajta. Labadii askari ee isaasintu ay dhaxmartay ayaa goobta ka baxsaday. Waxaan la sheegayaa in ciidamada ammaanka ay goobta soo gaareen iyaga oo sameeyay howlgallo ay ku baadigoobayeen dadkii ka dambeeyay dilka ama geerida marxuumka oo la sheegay in uu ku dhintay isaasin dhaxmartay laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa faahfaahin waxa uu ka bixinayaa sida ay wax u dhaceen. degmada Dayniile ee gudta waaxda barwaaqo Stanberg waxa ka dhacay runtii shaqo aad iyo aad lagu xun runtii taas oo ah in halkaas isku xabadeeyeen laba askari isku xabadeen kadib laba askari markii isqabsadeen xabadaha sakida Axmed Muuse waxa dhacday in ilaa kuma darnaade mooto bajaajle oo bariiskiisa raadsanaya meesha iska maray in halkaasi oo ku baxo oo ku dhintay. kadibna waxa dhacday in ninkii dilkii geystay inuu baxay oo isla markiiba mooto kale oo dhaay fiiqaad oo mootada kale oo rabay inuu sii dilo. wallahi marxuumka meedkiisii markii mara la saaray isla markiiba lama qaadin buu waxa waaye labada askari saxbadeeyay ayaa ilaa kuma darnaadeen goobta ku sugneed ayadoo meesha labada askari saxbadeeyso askarigii dilka geystay ayaa baxsaday mooto kale inuu rabay oo yiri waa ku dila asaatee meesha suurtagelin meedka runtii waa la qaaday goobta waa laga qaaday waa la soo gaaray goobta dad fara badan baa soo gaaray sakari meedka waa la qaaday runtii marxuumka waxana loo qaaday saldhigga xeer Jamal. waxaa la tilmaamayaa in waayihii dambe ay degmada Dayniile gaar ahaan waaxda barwaaqo ay ku soo badanayeen xubnaha hubaysan kuwaasi oo mararka qaar la fahantoodba dhac ka geysta qaybo ka mid ah waaxda, iyadoo la tilmaamay in goor sii horeysay taleefano ay ka qaateen dad shacab ah oo halkaasi ku noolaa. waxaana tani ay saameyn ku yeelanaysaa ammaanka deegaanka ama waaxda iyo socodka dadka, maadaama dadka markaasi hubaysan mar waliba ay suurtagal ka tahay in ay risaaseen dhaxmarto iyo in dhibaato ay u geystaan dadka shacabka. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socdo receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah.